السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشين داقيني كسو دوادا جنرال كينا داقيني اوفيشيال وآلا بعد كلا سعوتان برنامجي إذن حيسة قلية ما أنتنا واقبتيني ليابك الدنيا أنا دين سو دياريي ودماءات وفربضان إيوه لقمدا إليهين ليابك الدنيا كلا سعود داقيني جنرال. wadan waliba waxa uu leeyahay dhaqan u gooni ah. wadanka Gani wuxuu dhaqan ahaan u leeyahay dhanka guurka markii gabadha la guursanayo in rag aad u fara badan hortooda ay baraakad ku dabaalato iyadoo wax dhar aanan sidan. haddii wiilasha goobtaasi ku sugan oo wiil ka mid ah uu gabadhaasi dhar siiyo waxay ka dhigan tahay in uu ka helay. haddii gabadhaasi ay dharkaasi wiilka ay ka aqbashay ka qaadatana sidaas ayuu ku qabaa. هذا أهان قبلها مركي لجورسنا يوحى يكون فكران إن أي إسعاتيان أما إسقريحيان جر أهان بلس دلك موريتانيا أو كدوين يهي دلك كله قبلها وحى إرادنا يان عير زائدة وحى نسمينا يان إن أي إسعيليان قبل والبنا قبل كعيرن تهي أما ميزان كذا وكزائد سنيه أي مهر كذنا وكقاري سنيه. ودن كعراق وحى كجر رقمات وفربنا رقم كأو عنسان ومتك gabadha caruusada ah wiilka guursanayo in baraag la galiyo ayaa loo qubaynayaa wiilka markaas baa wajiga loo gelinayaa biyihii marka asigu qoyan meesha laga soo bixinayaa. markii meesha laga soo bixiyo ayaa waxa la keenayaa teendho ka dhisan qasab. teendhada markii la keeno dadkii meesha isku wada yimaadaan gabadhii oo loo dhisay sida taashki loo sameeyo oo yani sinsiyeeri camal ah ayaa gabadha la dhex fariisinayaa. marka sida hindidii camal ayay shaabahaan dadka weynaha ayaa meesha isugu imaanayo oo hoolkii qasabka laga sameeyay. waxaa la isugu keenayaa cunooyin sida ceeshka iyo yani waxyaabaha noocaas camal iyaga ay isticmaalaan tamiiska oo kaleeto waxyaabaha ay dhahaan sida anaga aan dhahno kaleeto qubis u yaqaanaan iyo ceeshka waxyaabaha noocaas camal ah. markii meesha la isugu keeno cunada ayaa la wada cunayaa. shiiqi iyo wiilkii maracad isku xiranayaan asiga iyo shiiqi wax isku meherinaayay. markaas ayaa gabadha waxa loo gelinayaa sinsiyeerigii ay ku hoos jirtay wiilka loogu geynayaa oo teendhada camal u sameysneed. marka meeshay dhex fariisanayaan shiiqi ayaa wax u akhrinaya oo yani madaxa ayuu ka tataabanayaa waxbuu u akhrinayaa. sidaas ayaa la iskugu meherinayaa labadooda ayagoo meeshooda ku jiro. kadib waxaa leeyahay ninkii gabadha gacanta la sugelinayaa ma iswaafaqdeen yani khalaas sidoo meher ku dhamaana gabadha waa ay joogsanaysaa. wiilka xirigii marka hore dhexda loogu xiray ayay ka furaysaa. markii gabadha ay ka furtay xiriga sidaas ayayba isku guursadeen oo xafladoodii meeshaas ayay ku dhamaanaysaa. dadweynihiina sida ay ku mashxaradayaan sidaas ayaana gurigooda loogu galbinayaa. qabiilka Afrikaanka ee Joobis wuxuu dhaqan u leeyahay in gabadha caruusada lagu qasbo in ay dureeliso carabkeeda deetana ay ku xirto cirbada dharka lagu toosho iyo dunta. markaas ayaa waxa lagu ilaalinayaa gabadhaasi in ay noqoto gabar afgaaban oo yani aan war badnayn. haddii markaas ay noqoto mid war badanna ninkeeda duntii oo carabkeeda laga laalaadiyay ayuu jiidayaa si ay ugu aamusiyo. dalka Shiinaha qabiilada dega qaarkood ayaa wiilka caruuska ah waxa la dul marsiinayaa soo naagtiisa dusha ku sida dab. haddii uu u dul qaato dabkaas waa nin gabadha lagu aamini karo oo mas'uuliyadeeda qaadi kara. haddii uu qayliyana waa nin khayr mas'uul ah lama siinayo. wadanka Kenya dhaqamada qaar oo ka jiro ayaa waxa gabadha markii la guursado bil kadib ninkeeda waxa uu xiranayaa iyada dharkeeda si uu isu dareensiiyo inta uu la eg yahay dadaalka ay ku bixisa naagtiisa howlaha guriga iyo asiga daryeelkiisa iyo xanaaneyntiisa. wadanka Uganda gabadha markii la guursado caruuska iyo caruusada iyagoo ay dad aad u far badan ay garab ordayaan ayay magaalada waxay ku soo marayaan mid ilaa ay ka tagaan guriga gabadha loo galbinayay. wax gaari ahna laguma galbinayo gabadhaas oo gurigeeda waxa ay ku tagaysaa lugteeda iyadoo magaalada daafeeda ku soo wareegayso. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar, like-tana waa inoo muhiim, commentiga waa inoo dhiirigelin. fadlan nagula wadaag fikirkaada. aad baad u mahadsantihiin.